السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع عنه ونحسن. Students and teachers. هتكون سؤالتان titration calculation. هنسمعنا إن شاء الله دلوقتي إن كلاس سبحات توصي فرق for trigger titration calculation إن واجبت الكلابات البوق المخرج بلده عشرة أنت بدن الإنسان روح عند سوق على البوق يا أستاذ إن على أول شهر أستاذ كيميكو أنا بدن سوق على الإنسان روح إن marka maadax gaarto shanaaleeda saakiinka ay leeyahay isaga uu kaga hadlo maadada scientific xisaabta iyo chemistry iyo biology waxaan ka shaqeynaa marka titration calculation waa xisaabinta midniska in la xisaabiyo midniska marka la xisaabinayo waxaa lagu helaa MA oo ku dhusan VA oo la mid ah MB oo markaa ku dhusan VB. MA means molarity of acid, V waa volume of acid, molarity of base and volume of base. Okay, inshallah example inta ku jirno waxaan isticmaali doonaa ml iyo waxaan isticmaali doonaa mole per liter. ml walba aan aragno waxaa meesha inuu yaala volume markaan aragno mole per literna meesha waxaa noo yaala molarity. ml haddaan aragno waxaa haysanaa volume, haddaan aragno mole per literna waxaan haysanaa molarity. acid iyo base waxa uu yahayna hadalkaan ka garan karnaa. example-keeni koowaad wuxuu leeyahay when we go to 10 ml of 0.12 mole per liter solution, wuxuu ku yiri goorta 10 ml oo eber dhibic 12 mole per liter solution milan ah of hydrochloric acid. meesha maxaa ka cad ml waa inuu yaalaa, mole per liter solution waa yaalaa, inuu acid yahay inuu base yahay waxaan garan karnaa of hydrochloric acid. marka waa acid waa NaVA. hydrochloric is titrate waa la kala bixiyay baalii with waxaa lagu kala bixiyay 0.100 mole per liter solution milan ah of potassium waxaa lagu kala bixiyay oo hydroxide ah. haddaba marka meeshaan waxaa laga siiyay potassium hydroxide oo base ah. What is the volume of hydroxide? waxaan loo diray volume-ka hydroxide-ka marka waa base. Okay, solution. qaacidadu maxay ahayd? MA molarity of acid oo lagu dhuftay volume of acid, molarity of base oo ku dhacsan volume of base. meeshaan maxaa dhiisay marka hore ml is my volume, laakiin qaacidada aan ku dabaqo marka hore waxaa laga rabaa inaan soo saaro inaan helo MA koowaad waxay la dhigan tahay 0.12 mole per liter waa molarity of acid. Okay, VA waxay la dhigan tahay maanta waxay la dhigan tahay 10 mole and 10 ml. marka labadan waa hydrochloric waaye waa acid
acid MA iyo VS soo ku dhamaadeen okay MB deedana waxay la dhigan tahay MB deedana away MB deedana waxay la dhigan tahay waatan waa 0.100 عفوا 100 مول per liter waxaa laga rabaa maxay tahay marka VB waa maqan tahay qaacidada maxay ahayd marka waxaan sameynayaa 0.12 mol per liter waxaan ku dhufanayaa 10 ml kadib waxaan u qaybinayaa MB deeda oo ah 0.100 mol per liter mol per liter isla bixi 0.12 ku dhufo 10 ml kadibna u qaybi 0.100 mol per liter jawaabta marka soo baxays waxay noqon doontaa ml maadaama la ii diray aniga volume maadaama la ii diray 12 ml baa soo baxaysa jawaab saxda waxay noqonaysaa 12 ml okay استاذي قاعد يوم ما تسلس بصوص ساعته وحنا استاذي انا ما دام الادري في بي وحفظت انا سمعت قاعده انا سمعت قصبر هاي في بي مركز صوص صار هاي waxaan ku dhahay hadii MA iyo VA MB iyo VB midkood lagu diro labada kale ee ku soo hartay oo aan lagu dirin isku soo dhufo waxaan dhahdaa waxa lagu diray maxaa waaye saaraan waxa la yiraahdaa VB waxaa leeyahay VB waxa uu la dhigan yahay muxuu la dhigan yahay marka labada kale aan lagu dirin isku soo dhufo waxaa leedahay hebel oo lagu dhuftay hebel maxaa soo haray marka mid aad lagu diray tan dariska soo ku soo harin tan dariska la ah u qayb marka waad helaysaa midda okay example ka labaad aan ku sheegaya given ka marka aan dib aad fahanti xoolaha araga oo xoolo ku liminto hadaa aad ku fahanti kadib luqad baas kale example كان اللغات وجودية 3.84 ml of hydrochloric acid ml هو volume hydrochloric ما دام هو راعي acid وهنا هو VA اللي هو volume ما تعرف acid وvolume 1 just to neutralize وعلى لما كوحب قلب حساب المعب قلب على 25 ml of 0.1 mol solution of sodium hydroxide. لابد نحاول مركا تدنوا ml و v volume لكن volume تواي وكسيرة hydroxide ما دام كمان وبيس مركا وبيس 25 mol of sodium hydroxide وبيس okay هي 0.1 mol per liter mol per liter ومولاريتي ml هو volume لو ضفنا محور كثيرة of sodium hydroxide مركب وبيز وVB MB ماشي بحكم خلنا ماشي وحكم خلنا عندهم MA كم خلنا عندهم MA أيام خلنا عندهم أوكي MA أنا ما خلنا كمان وحالنا MA وحالمتها استاذ MA أنا ما خدها سيكون جاتي good question MA أنا ما خدها وحنقول هذا وقت ماشي وحالنا what is محوية هاي the concentration of hydrochloric acid وحال إدراك إنه acid ماشي على وضوح لو إن MA ما خدها كأهان سيكون جاتي أو MA أنا ما خدها وين بس كعندها هاي بس ربطه MB ليسي VB نواليسي VL نواليسي VL وكا بكون بالوظيفين توقع يسدح بيع سديت اللي أفر ML مقوى فوليوم قسمه فوليوم 1 أوكي مقوى حالها MA وحالة اللي كانت هاي ما أنتم حال إدري MA على إدري وحان سمعنا مركا MB وحان كوكوفانا يا VB وحان قيبنا يا VA أوكي MB وحان كوكوفانا يا VB وحان قيبنا يا VA إلى صفر محال يقرأ مركا
waxaan leeyahay waxay la dhigan tahay m mb oo ku dhufsan vb oo loo qeybshay oo loo qeybshay ma marka yaa daris la ah marka va daris la ah va okay maanta mb-deeda meeqa waay marka maanta mb-deedu waa 0.1 mol per liter waxaan leeyahay 0.1 mol per liter oo ku dhufsan vb-deeda waa imisa 25 ml oo loo qeybiyey v1-keeda waa imisa waa 13 ml waa 13.84 ml bixi waxaa samaynaysaa marka 0.1 mol waxaa ku dhufanaysaa 25 waxaad u qaybinaysaa 13 jawaabta waxay ku noqon doontaa 18 eber 6 tirooyin kalaa soo raacaysa forget it oo ml ah ayaa soo baxaysa labada qaanuun markii aad doonto isticmaal laakiin macallimiinta badana oo chemistry dhigta qaanuunkaan isticmaalaan ma waxay la dhigan tahay mb oo dhufta vc oo loo qaybiyay va okay titration calculation intaad daabatay waad ku mahadsantahay